راديو وراديها كلية أي راديوياasha kala dhageystaan hanooganin habeen kasta oo axada ka dhageysta 88.9 FM مكان ولو هيدا مركان لو قبل دقا معنا صار لو برتا مسمى حلقة الدلا نديك لوحن لها إيمو إيغا مقناو دوكاغا مامولو مراد كيغا انقوته هدي أبايا دهدا أنون كاربين مصلحة مرهبان كوغو مرسين مظلوم كيكو مجرو درسيني وامغول مريجي دهو دالين إله ومهدالين معانا دولة نمو نديك لوحن لها أبيغون مران كتابين نفريا مالي مهيد هدي أدمايا تهدا أنون كاربين مصلحة مرهبان كوغو مرسين مظلوم كيكو مجرو درسيني وامغول مريجي دهو دالين إله ومهدالين معانا دولة نمو نديك لوحن لها ميغاق ميشا كيال أديغا أون ملائي أوران كسو دير ميرح وين هدي أدمايا تهدا أنون كاربين مصلحة مرهبان كوغو مرسين مظلوم كيكو مجرو درسيني وامغول مريجي دهو دالين إله ومهدالين معانا دولة نمو نديك لوحن لها بسم الله الرحمن الرحيم مدنية مروين مرتي شرطة عاوة السهوتمد مدشم لغوشو دوينيو لغونا السهوتينيو حلبانضة صوماليات سعدية عريس عيسى كارشة ورمتي حلبانضي وقوه الرئيسي غير طرمطاء iyadoo intay wadankii tagtay haddana nasiib u yeelatay inay noo soo noqoto oo akhbaaraha ay wada iyo message-kaba noo soo gudbiso munaasabadan waxaa soo qabanqaabiyey guddiga qabanqaabada oo ay ka mid tahay Aamina Qurxan iyo gabdhaha Maybo marka ugu horeysa sida waajibka ah waxayna munaasabadeena iyo damaashaadka inuu ku furanaynaa aayadaha quraanka kariimka ah oo uu sheekh Yuusuf Kaahin uu noo soo jeedin doono fadlan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin ya rabbil alamin Allah nagu anfaco aayadaha quraanka kariimka ah uu noo soo jeediyey كاهن ولا يال مناسبة حفلة برع الصم هول كان قروحه أي كم وقطه سيد الشرف لنا لصو حبي بانكيت إستر ريستورانت قلتي إستر إن بدن بالصومالية طلنت كنور أي كول ولد شرين مال أي حفلة لها كل التام ama ay isugu tagi jireen baankiyo kaleeto oo qaaliya oo maartay ajnabi ay leeyihiin mulkiilaha Easter Restaurant oo runtii Soomaalida jaaliyadeena Toronto iyo nawaaxigeeda u suurta gelisay baankiyoodkan bilicdasan aad baan uga mahadcelinaynaa walaasheen Easter caliganay xafladii ugu horeysay ee madaxweynaha lagu soo dhaweynayay ayaa baankiyoodkan lagu qabtay caawana xildhibaanadii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee reer Toronto ayaa iyadana baankiyoodkan lagu qabanayaa marka taariikh buu inoo leeyahay mar labaadna walaasheen Easter way ku maasan tahay barnaamijkeena oo runtii taxano noqonaya waxaa inoo xidhiidhin doona isla anigoo ah Xasan Cabdullaahi Cumar Karate walaalayaal waxaan ku soo dhaweynayaa kooxdii qarandoon oo runtii
caawa fadhiga inoo diidi doonta oo heeso badan diyaariyey oo ay ka tahay jibadii dowladnimada xambaarsan baa joogta aan uga baxo microfonka iyadoo noo sheegi doonta kooxda iyo intay ka kooban yihiin Faadumo Cali Nakruuma mahadsanid xasan karateo markaad leedahay karatee habeenkii baan ku dhagaysanaa waxaan is leeyahay wuxuu maartibitaal ilaa waa kaa dhab karatee markaad leedahay sidaad u sheegtay howlka kan waa howl barakaysan maxaa jira habeenkii horena lama filaan ayaa la isugu yimid caawana xildhibaanadii koowaad ee reer Toronto ayaa lagu dhigaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa aniguna madax markaan noqdan halkan laygu dhigo waxaa caawa oo ay bisha tahay 8 bisha September 2012 lagu dhigayaa magaaladan Toronto xaflad qaali waay it is very superlativo assoluto ما بطليان وحوقا لكن وسوبرلاتيف I mean waxaa caawa halkaan joogta oo loogu dhigaya xafladatan saciimada qaaliga gabadha qaaliga oo aabaheed qaaliga oo wadaniga oo Soomaaliyeed oo leenahay qoladii xildhibaanka ka dhigtay baan horta waxaan leenahay hagaado maxaa jira waxay tiraaceen meesha ay ka soo jeedo gabadha taro qoyska ay ka soo jeedo iyo taariikhdii وسعدية عريس عيسى كرشة انتي تقانينا وتقاني تنقونا والو تلمامية سرجع نوع حدانو نايرين تروتو قبل يقول ريسي ايه نقطة اللبان إني عاوة سيدة فريدو oo ofreer Torontaan xabar madax ka yahay baan ii sheegay xafladda quruxda qaayaha leh waxa isku soo bariday gabdhaha degan Babel iyo gabdhii reer Kismaayo because she came from Kismaayo waa Kismaayo iyo Kisaaga haddii aan soo dhaafo way maatan yihiin kooxdaas عزماتها قرصة بدل يوفد سعاوة حلدي بعنا قرصة بدل سعدية عريس عيسى كاشة سعدية سودة وو صومالية ودرتي وقصة رئيساي 7 8 سهرلا صعبي لساي 8 وهنا 8 because I came from the celebrities of Wabiri مركا هاس وتريد رينيك اللي يراد وغالي شري سلا دربي وحي هاس وحي أولاد كالقعد داي قبل udgoonka ka garta laakiin waxa ku tusaysa quruxdeeda iyo si u qoslayso waa gabar kasta from Wabiri Wabiri artista ka timid yes Soomaaliya intii ugu sarreysay sibaneeda saxarlaay waxa tahay sareerada mas'uuliyadda loo hulay qaybta ugu sarreysa oo siyaasadda dalkeena kala sixisal iyo baa haddaan baarlamaan jirin dowlad ma jirto waa inaad waxaad tihiin xididada dowladdaad tihiin marka waxaan fili doonaa inaad dowladdaas ay noqon doonto mid sarrayn doonto waa sarraysa waxaa tahay sareerada qaybta ugu sarraysa siyaasaddeena Soomaali kala sixisal iyo baa baarlamaanka samawade lagu sima sal iyo baa waxaad lagu sitaan sareeri iyo sama roob leh nadajiya haddii eeba kugu simo aniga waxaan u hambalyeynaya horta madaxweynaha dalka Soomaaliyeed ee cusub oo waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeynayaa baarlamaanka ummadda baarlamaanka oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari my baby dowladdaas inay soconayso waxaan ku dhaaranay inay socon doonto haddii eeba kugu simo rugcadaagii wadanigii saxaha gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari salaanteena ugu inaan soo socono sii sheeg xulkii dumarka Torontaay xildhibaanadeenay xulkii dumarka Torontaay xildhibaanadeenay xaasha lilaahi xushmad iyo aqoon iyo xiise iyo jacayl baan kugu xeerayaa oo ku leeyahay eedo xabiibi noqotii xashaashto dowladeedu xiran tahay
وحوق يلتايو حوق إلى لنا حاشا لله يا شعب أي نفتحشو أيام كوكو دعيني إيدو وحنكو لها حنباليو مرة بعد باليو كوكا للفرميني وحفر غير إيه فرحدات كدلتو إيه هسيه نفتها أو على كذا نقول يا كودا لنا ذلك الطمي سيدا ويا ذلك الصومالي ويا الفنك الصومالي هذه عبد الله دليل أنا بقول ما أنا عاوز إلى إيودا إلى إيودا وحيدا ولكن صاحبك الله نحريص عريت إنسان صاح حسوسك آدي أدبانا مغفر حسنا هي جبلني كالكاليو وغفر حسنا هويو وغفر حسنا هي سوده تلكي حتى تكنا نبات إن شاء الله قول هذا نفسه تجدونا ينوسي هرمك وهذه الراديات يس شو دشنا
soo gaarnay muhiimadii khudbadeena oo aad u timaadeen sida farxadda leh ee sharafta leh aad usoo sharafteen xildhibaanada Sacdiye Carays Ciise Kaarshe oo runtii ah xildhibaanad baarlamaanka Soomaaliyeed oo iyadu joogtay doorashadii madaxweynaha kana mid ahayd guddigii qabanqaabada 15 ahaa loo xilsaaray inay soo dhisaan madaxweynaha xildhibaan kaliya ma ahayn guddiyo dhowr ayay ku jirtay waa gabadh aqoon leh oo mutacallimada Sacdiye Carays Ciise Kaarshe naxariistii janno Allaha ka waraabiya aabaheed Carays Ciise Kaarshe ayaa magaca samaystay magacii aabaheed samaystay ayay iyaguna ku socdeen haddana ayadaa magaceedii samaysanaysa midka iyadu ay samaysato ayay awlaadeeduna kasii ambaqaadayaan marka aan ku soo dhaweeyo walaashay xildhibaanada Sacdiye Carays Ciise Kaarshe intaadan ku soo dhaweeyo magacii aabaheed iyo magacii habaryarteed Xaliimo Godane ee Israel Carays aad bay u mahadsan tahay taariikhdoo dhan bay haysaa SYL iyo aasaasayaashii iyo dadkii halganka ayay qoyskeedu uu ka mid ahaa xildhibaan ku soo dhawow Sacdiye Carays Ciise saxabkaa loo tumo ha la soo dhaweeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدو بالوجه الغرداد من دارنا هاي حبايبنا اللي وجهتها لكن فرحة دروية بضطي وحن كهالله لا حتى ما قرنيه sababtoo ah sida sharafta leh ugu soo dhaweyseen ama aad ii tixgeliseen ama aad waqtigiina qaaliga ah igu soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadinayaa reer Torono anigoo aan magaciina matalayo aan xambaarsanahay dad badan baa waxay oranayaan Sacdiye oo maanta hadlayso hadalka waxba igu qasbay inaan hadlo waxaana igu qasbay dalkeenii hooyo oo aan anigoo ka maqnaa muddo 20 sano iyo ka badan wadankoo nabad ah Allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre asagoo xukumayo aan ka ambabaxay nabadna jirtay una soo noqday hadda wadankiyo burbursan inkastoo daaraha ay burbursan yihiin laakiin nabad aad iyo aad u weyn ay jirtay markaan hadda ku noqonayay Torono markaan ka ambabaxay oo aan tagay magaalada Muqdisho wallaahi waxay igu ahayd aad farxad aad iyo aad u weyn ma igu ahayn xukuntoon iguma ahayn xildhibaan raadis waxa walba waxa iga weynaa caradii aan ka maqnaa muddada aadka iyo aadka u dheer waxaan aad iyo aad ugu farxay markaan Kenya ka ambabaxayay waxaan raacay diyaarad Soomaaliya leedahay oo Juba Airline la yiraahdo oo Soomaaliya ugu dambeysay muddo aad u fog diyaaradaas oo la raaco taana farxad goonida ii siiyay waxa kaloo ii farxad weynaa Canada ilaa Kenya markaan tagay waxaan ku jiray dadka hareerayga fadhiyo wada cadaan bay ahaayeen ajnabi bay ahaayeen laakiin markaan Kenya ka baxayay oo Muqdisho u socday kan diyaaradda wado kan biyaha isiinayo ama annaga oo idin waxa diyaaradda saaran siinayo waxa ay Soomaaliya
taasna waxay ahayd farxad weyn waxaa kaloo farxad ii weyn ii ahayd iyadoo doorashadii ay aada u dhaweyd la dooranayay guddoomiyaha iyo madaxweynahaba in ay diyaaradda saarnaayeen in allaale intii soomaaliya ay ka maqneyd muddo dheer oo isku soo wada xabarwacday oo xiise weyn ay u qabeen dhulkoodii mid walba aan isweydiinana ay tahay dad sheeganayo muddo 20 sano ka badan inay ka maqnaayeen wadankii waxaa kaloo aada ii farxad weyn ii ahayd ilmo dhalinyaro ah oo aan weligood wadankii arkin oo aanan aqoonin oo keentay ayagana xiisad aada u weyn inay soo arkaan dhulkoodii waalidkood ku dhashay awowadood ku dhashay ayayadood ku dhalatay ay rabeen inay soo arkaan ayaa diyaaradda nala saarnaa anyway hadalka yaan ku dheeraanin aada iyo aad waxaan ku faraxsanahay wiilasha qalqaabada ama raadiyaha wiilasha u duubayo ama tifiyada iyo kaamirada iyo everybody wiilasha halkaan xaadirka ku ah aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dadkii soo abaabulay dhammaantood waxaan kaloo aada iyo aad aan ugu mahadcelinayaa oo dhinacayga istaagan xasan oo ama macalinkaygii jaamacadda la waxaa kaloo halkaa iga muuqdo ardadii jaamacadda la socda ayagana aada iyo aad iga muuqdo gabdhihii aan la noolaa gurigii aan ku noolaa oo ilmahaygana ay ku noolaayeen baan ayagana u celinayaa waxaan kaloo u celinayaa mahad dhammaan dadka reer Kismaayo oo ah maanta magaca aan hogsanahay ama qof walba uu igu ixtiraamayo ama igu qiimeynayo dhulkii uu kusoo barbaaray aabahay allah u naxariisto macalinkayga dhinaca iga istaagan waxaa jirta shalay galab ayaan waxaan isku aragnay restaurantigan asagoo u socdo lunta ontaria uu u baaqday aawaday wax walba aan hayo waa joojinayaa waana ka qayb galayaa aada iyo aad baan ugu mahadinayaa garabka uu isiiyey iyo siduu ii garab taagan yahay waxaan kaloo umahadinayaa walaasheen Esther oo ah walaal aada iyo aada u qiimo badan una qaayo badan soomaali jecel weynna ku jirto intaana isku soo aruuriso soomaalida restaurantigeeda kuna abaabisho in ay ku wada kulmaan wax qof walbana ay kusoo dhaweeyaan aada iyo aad bay umahadsan tahay iyadana hadal hilmaan ma lahan waxaan mana hilmaamin goboladii waa beri oo ah aan ka ursanayo ama aan ka dugsanayo aabeega laada anigoo ku hadlayo magaca madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud guddoomiyaheena maxamed jawaar gudoomiye ku-xigeenka koowaad jeelaani dhammaan xildhibaanada aan magacooda ogsanahay intaba waan u mahad celinayaa waana salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dowladdii uu kala wareegay xasan sheekh oo ahaa sheekh shariif cabdiweli oo ah ra-iisul wasaaraha nabadda maanta xamar ugula socdana ee ayaga abaabuleen ama ayagana hambalyaan celinayaa waxaan kaloo aan rabaa inaan halkan ka yaro saarto magaalada muqdisho iyo nabadgelyadeeda waxaan filayaa dad badan oo isweydiinayo magaalada muqdisho nabadgelyo ma jirto haddaba taa haddaydan ka dhaadhacsan tahay magaalada muqdisho nabadgelyo way jirtaa haddiina waa horey ayna jirin sababtoo ah magaalada muqdisho waxaan deganahay aniga lambar 4 aeroboortka ilaa lambar 4 ilaa madaxtooyada ilaa shabeel oo isku wada furan yihiin jidad aan hadda maraynay markay baabuurta aan ku soconno qof walba wuxuu leeyahay kollay anigu hore uma joogin wax ka waxay leeyihiin xabadaha way isdhaafi jireen oo lama mari karin markii la marayana baabuurka orod baa lagu marsiin jiray haddana waxaa dhacda in hataa dadka ay socod ku maraan ee baabuurtooda la
Soomaaliya nabadgelyada maanta ka jirto dad baa ka shaqeeyay annagana qurbaan joognaa gacmana la wada jir bay wax ku qabsadaan marka waxaan oran lahaa dawlad waa laga soo shaqeeyay nabadgelyada waa laga soo shaqeeyay laakiin dhammaystirka waxay sugaysaa qurba joogta sababta oo ah waxaad dib u fiirisiin carruurteena hadda markaan maalinta inta kasoo deganayay aad afku waxaa loogu hayo qarax ka dhacay Soomaaliya laakiin anigu qaraxa waxaa iiga weynaa ilmaha yararka oo halkan ku dhintay xaqiiq ahaantii oo sababtay soo yaacnay qurbaha aan joogno oo aan aaminsanahay meeshan habeen walbaba hal cunug laga jiidayo ama geeridiisa guri walbaba ee baroor ka jirto laakiin waxaa Soomaalida ay aad ugu fakirtaa qaraxa xamar ka dhaco marka walaalayaal dib u fiiriya nabadgelyada waxay ku timaadaa ama kalsoonida buuxda waxay ku timaadaa markuu qof walba oo waalid ah uu dhexda intuu xirto wadankiisii uu aado uu soo arko waxa meesha ka jiro oo carruurtii la geeyo waxaan filayaa waxa yarkoo qaraxa dhacayana uu baaba'aya South Africa waad aragteen waxa ka jiro dhibaato ah waxa maxay habeen maalin wiilasheena ama dumarkiiba hadda la dilayo marka intaada idin waxaan ugu arkay dawlad la'aanta kalsooni la'aanta iyo annaga aan isfiixayno marka intaada waxaa lagu dhameyn karaa haddaan annaga tagno South Africa iyo Yemen baxarig ha lagu xiro badana waxaan hadalka ku sii shaday meeshan ma jirto sida hore idinku sheegay guddigana waan ku jiray 15kii guddiga soo dooranaya madaxweynaha waana arkayseen cid walba uu jirtay daacadnimadii iyo kalsoonidii uu ku dhacay shaqo weyn oo la qabtayna way ahayd annaga nooma kala socno haddaan nahay xildhibaanada nin walba oo Soomaali oo maanta qabsanayo diyaar baan u ahayn oo nasiibkiisa uu siinayo garabna inaan istaagno diyaar bay tahay marka fariimaha adii farteen waa idinka gaarsiinayaa adinkuna waxaan idinka gaarsiinayaa dhulkii inuu nala jiro loona baahan yahay in lagu wada noqdo hadduu ilaahay raali ka dhigo waxa allaale wixii su-aal aad qabtiinna waad iweydiin kartiin oo aan ka jawaabi karo ama aan wax ka ogahayna hadduu ilaahay raali ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi midii kale waxaan lahaa murwa iyo mudanayaal walaaluhu waa maqsuud waxaan nahay madax bannaan meeshaan doonaan marnaa madluumkii kuma jiro dhirteennii waa magool miraygeeduhu dhaleen ilaah baa mahaddaleen macaana dawladnimo midii kale waxaan lahaa milkiri daafaca dhulkiyo diyaarada miyiga iyo madaafiicdaan qabnaa madluumkii kuma jiro dhirteennii waa magool miraygeeduhu dhaleen ilaah baa mahaddaleen macaana dawladnimo midii kale waxaan lahaa mixnad adigoo ku jiro mishkilad ka haysa meel magoolku curatay oo maquunaa lama rabe waa madi maandeeqdayadu magaca Soomaaliyeed magaabay ugu hayaan madluumkii kuma jiro dhirteennii waa magool miraygeeduhu dhaleen ilaah baa mahaddaleen macaana dawladnimo midii kale waxaan lahaa موقف بانجيدينو مجلس كان كهذلنو أدونكي بان مرو معروف بان قنايو مظلومكي كما جرو درتيني ومغول مريقيدو دالين إله ومحدالين معانا دولدنو نجيك لوحن لها موجودة دامن إيا مضروف بانكو هذا المهم مرسية ما يدال إيا ما ويلين بان ودنا مقع صومالي ديو ميلو جوبة بشعبه مرحبا لنا حي مظلوم كيكو مجرو درتيني ومغول مريجيغو دالين إله ومهدالين معانا دولدنو نديك لوحن لها
يا مولا يوما دير سالية من لي موش يا معيس يا مودي يا دير ملا ملكذي حوله دعان مجد يا مدحجس يا متانها قرد كرطوضة معافية والمرير مذولو يا منوليو مغدر يا مورد جبد مقار عدياق مهدي يا مطور كاميدو يا ميكو يا مانا موفا سندد موسكني يا مرير ريدا قوشي يا مقالة شيخ مرجان مدع صوماليات ولا هو مقصود مظلوم فيكم أجرو درتني ومقول مريجي بخو دلين إله بمحدلين معانا دولة نيو نجيك لوحن لها مسلمكم مجيك تهلا مسلمكم مجيك تهلا ضرور موجود هو الدنيا مرشدي موطنه ندبحو عذاب لغا مغنجشي الله شافي مرمي مظلوم كيكم مجرو دركني ومقول مريجي ذو دالين إله بمحدلين معانا دولة نيمو نجيك لوحن لها موتر لغا قاطي معك مسألة ويعانا مغل ميد الكابحين منصحة مسألة ويعانا مغل مجنون مرض لو قد صدي مسألة ويعانا مغل نيرأو قلي مسير من وينتي أي مصلح مسألة ويعانا مغل منه ملقيس قلي مره موضوع كعل مسألة ويعانا مغل نمو ملاقيس قلي مره موضوع كعب المسألة ويعانا مغل مسكين يري مغن قلبي متكي لو ديبي مع المعاملة أدون ميخان بيسي من يهين مسألة ويعانا مغل من مغن او مدع لخوم مسؤولية سارن تاي هي مقرون ميلها مرمرة ميخان بيسي من يهين مسألة ويعانا مغل عبار حوله مرتين عرفو كوسو مدو ميايدو سو انقضي ميخان بيسي من يهين مسألة ويعانا مغل مجدي يا مالي وين ميخان بيسي من يهين مسألة ويعانا مغل مدفع يا موسر جاب ميخان بيسي من يهين مسألة ويعانا مغل وذاك معلم انتو مصاب عسكري حرفها ميرنا هيو مجرم كان قبل مذهبت ميخان بيسي من يهين مسألة ويعانا مغل مركب مع لبو شحنة مجروي به قوة مصباح ذو دارنته ميخان دير حيدا مير مسألة ويعانا مغل لباحو ملك مجمعبو اي تحي من دول مقوف وميل فديو ميخان دير تحيدا وحا مسألة ويعانا مغل من مضيو مع الله هديء ملجي قالوا مسكين دحل ريبا إيا أسوسا مدع كتغين حتفو وامور الله بهاي مسألة ويعانا مغل دبكا أولو يحي محتاج مي أجوك مركز مقالنا كافك تهي مضب إيا مروق رقيد إلا قوايا مرير مسألة ويعانا مغل وغي مع القبور يرجب ديلو مهريي مقاله ريقت كيسيزي مودي سيئية هدو معلمها ترشو جمحدو اي تهي معروف هذين كي كعمر قراه مقصود بي ان انتو تهي مسألة ويعانا مغل مركان قلمين كساري هبوه اي مرق فران هدبا موضح سبان خلقك مغشين اي ادمي واقع مضلون مسألة ويعانا مغل